beerihii qudaarta ee tuulooyin ku hareeraysan degmooyinka gobolada Soomaaliya ayaa qalalay wixii ka dambeeyay markii uu guray webiga Shabeelle waxaana sare u kacay qiimaha lagu kala iibsado qudaarta iyadoo qoysaskii noloshooda ay ku tirsaneed wax soo saarka beerahaasina ay sheegayaan inay ku adkaatay helista nolol maalmeedka. haddaba wasaaradda tamarta iyo biyaha ee xukuumadda Soomaaliya waxay raadin badan ugu jirtaa oo ay shirkani isugu yeertay dhammaan xubnaha dawlad goboleedyada qaarkood ee wasaaradaha dhinaca biyaha iyo tamarta waxaana ahmiyadu ay tahay in laga wada tashto sidii dadka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah oo ay cabaan isla markaasna laga baaqsado biyo la'aanta wadanka saameysay. wasiir ku-xigeenka wasaaradani tamarta iyo biyaha ee xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Libaax oo kulankan ka hadlay isla markaasna daafuray ayaa sheegay in muhiim ay tahay in qof kasta oo muwaadin uu helo biyo nadiif ah taasina ay sida saxda ah hortaalo dawladda ayna wax ka qaban doonaan ka wasaarad ahaan. shirkan oo maanta wuxuu ku saabsan yahay wada tashiga ah oo sidii loo wada yeelan lahaa ma loo wada qaybsan lahaa khayraadka biyaha. idinka waxaad aheedeen dadkii adeegaasi fulinayay. biyaha dhulka hoostiisa ku jiraan ama dhulka korkiisa saarnaadaan dawladda ayaa iskale waa khayraad qaran shacabka ayaa iskale laakiin u adeegayaala tihiin. marka waxaan u baahanahay sidii la isu waafajin lahaa dawladda iyo u adeegayaashii biyaha sidii ay wax loo wada qaybsan lahaa. waxa kaliya aan rabno intaas waan ognahay maanta xaaladihii aan ka soo sheekeeyayna aad soo qaadateen laakiin hadda waxaan rabnaa inaan iswaafajinaan rabnaa sidii loo wada shaqayn lahaa. dawladdu waxaa laga rabaa inay samayn doonto habka ma aragtay wada shaqaynta wada qaybsiga inay samayn doonto dejin doontona siyaasad ma aragtay biyahaasi loo qaybsanayo in la samayn doono shuruuc wayna sharciga biyaha oo aqalka sare hor yaalo yani wada qaybsiga waa ku jiraa waa baarlamaankan ansixiyey xukuumaddan ansixisay. marka waxaan rabnaa sidii la isu waafajin lahaa lahaanshahaasi iyo khayraadkaasi qaran iyo dadkii u adeegayay sharcigii ay ka dhaxayn lahaa iyo siyaasaddii lagu maamuli lahaa siyaasadda iyo shuruucda wasaaradda ayaa laga rabaa. marka waxa aan rabno inaan ka hadalno middaasi. shirkan oo socon doona muddo 2 maalin ah oo maanta furmay ayaa waxaa sidoo kale diiradda lagu saari doonaa sidii xal waara loogu heli lahaa saameynta inta badan ka dhalata marka uu guro webiga Shabeelle kaasoo biyihiisa ay nolosha dad badan ku tiirsan tahay muhiimna u ah wax soo saarka dalagyada ka soo go'a wadanka. منصر محمد عبدي Universal TV مقدشو.